السلام عليكم. صباح ونكسن بعض صحافة أقسمها جود أقسم واحدة وزارة ما أنت ماشن وحكي جوجا ورمتي أنا ما هاد علينا يوم دوين كي لصعد في دور كبلادها عندك وهي شغلة عربنا ما أنت إن ومدة الصومالية ماشن إن الجوجان بهذا ورباهنتا أما هالنقدان كو جدا أما كو دبدا أن لو ذاك إنه قرشها دولة يقول تلاقي شيء قرينتا أما دود جنت تدكي صوماليات كنتي قرشهن قرشه بلوجيس أن ربنا إن كبل لونه عاصمة المقدسة ويان وحن وحجو جودهان قبل هذا دلك وأنا قرشه قرن إن dadkii Soomaaliyeed muddadii 30 sano dalkan uu burbursanaa sidii ku meel gaarka ah waqtiyadii kala guurka ahaa ama qaxal lagu jiray degay goobihii aan munaasabka ku ahayn ama isku raranka ahaa ama laha goobihii biyo mareennada ama laha goobihii waxbarashada xafiisyadii dawladdu marka qorshe waxay dejisay dadkaas loogu samaynayo guryo ama dhul looga bilaabayo guriyahana loogu dhisayo guriyahaas oo ka duwan sida boorarka gadaasheeda yaala aad ka aragtaan kuwii lagu yaqaanay dadka qaxootiga ama barakacayaasha ama buulasha alaha ama jinkadaha laha marka kuwan waxay ugu duwan yihiin waa magaalo dhameystiran oo ay ku dhameystiran yihiin waxyaabihii asaaska u ahaa nolosha qofka oo ah waxbarashadii caafimaadkii goobihii carruurta ku ciyaarayeen iskooladii iyo suuqyadii waxaa sidoo kale ka abuurmi doona shaqo abuur ballaaran oo dadka meesha degaya waxay sidoo kale qayb u heli doonaan inay ka faa'iideystaan iskoolada meesha laga furi doono u badan kuwa farsamada gacanta iyo kuwii caadiga ahaa sida standardka u sameysnaa marka qorshahan oo ah 12,000 oo guri oo dad ku dhow 80,000 oo qof ay ka faa'iideysanayaan laakiin feeska koowaad aan rabno in aan ku bilaawno ilaa 6,000 oo guri aan isleenahay maalmaha soo socdo ama bishan ugu soo aadan bishan dhamaadkeeda ay madaxda sare wadanka dhagax dhigiisa ay ka shaqeyn doonaan waxa ka faa'iideysan doona dadkii ka baxay ama sida ku meel gaarka u deganaa goobaha aan munaasabka ahayn sida aan sheegay wasaaradda waxay sameyn doontaa qaab casri ah oo diiwaangelin ah oo gudiyadii dadkii xaafadaha ahaa ay degnaayeen lagu diiwaangelinayo lagu dhaxgalayo lagu baarayo qof walba meesha uu degnaa taas oo ah in la siiyo guryahaas ama deegaankaas cidda munaasabka ka ah ama xaqa u leh waxaan rabaa qorshahan ama istiraatiijiyadan inaysan ku ekeen kaliya caasimadda dalka laakiin uu yahay qorshe aan ugu talagalnay dhammaan dowlad goboleedyada dalka inaan ka